السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن وناكسن داوديال إذا هانتين مربى الدنيا ذيك الشوكتان حقيقة waxay noo socday waraysigii Rayma oo soo daawateen qaybta koowaad iyo qaybta labaad waraysigan waxa Rayma la yeeshay oo diyaariyay Abuka Sheekh Ahmed Al-Badri oo walaalkay ah wariye Soomaaliyeed isla markaana buugaagta hore sidaan hore u soo sheegay waraysiga qaybtiisa saddexaad ayaan maanta Rayma oo ila joogta la yeelanayaa waan bilaabeynaa sidaad la socoteen waraysiga qaybta labaad waxa inoo marayay in aan weydiinay Rayma in ay leedahay hanti iyo in kale iyo intay hantideeda la egtahay nala socda qaybta saddexaad Rayma way ag joogta oo dhoola cadeynaysa xaqiiqdii aan meesha inooga sii wado Rayma waad ogey tookada hore halka waraysiga inoo marayay maantana meel cajiib baad igu balamisay dana hadiyad baad ii sii keentay halkaan ka bilaabeynaa adiga Rayma hantida aad leedahay intee la egtahay haddii aan runta ku sheego jinniga dadka ugu hantida yar ayaan ka mid ahay hase yeeshee haddii loo eego insiga hanti badan ayaan leeyahay xitaa milkiilayaasha Hormuud iyo Dahabshiil Sheekh Ahmed Nuur Jimcaale iyo Cabdirashiid Ducaale waan ka hanti badanahay xoolo nool hanti guryo ah dukaamo waaweyn iyo ganacsi iyo maraakiib ayaan leeyahay laakiin ma doonayo in aan hantidayda tuso shanfarood leh waayo shanfaroodlaha dhac iyo boob ayaa ka soo haray lagama yaabo in jinni kale xoolihiisa uu damaaciyo ama dhaco shanfarood leh aniga ayaa arkay iyagoo isdhacaya Rayma hantidaada waad ii sheegtay lagaamana dhacayo oo anigaba kaama sheegayo runtii balse haddii aan ku weydiiyo arrimo qoyskaaga ku saabsan dib miyaad u aragtaa dib ma arkaayo ee soo daa aabbahaa waad ii sheegtay waa haguuf asilad haddii aanan qaldanayn bal waxaad ii sheegtaa hooyada magaceeda iyo walaalahaaga magacyadooda qaar si ay dadka u fahmaan noocyada magaca ee jinku u baxsado hooyadii waxaa la dhahaa Ruuxaani Haykal Al-Silad waa bacwale idinka bacwale waxaad dhahdaan injineer hooyaday jidadka Soomaaliya ee jinka ka isticmaalo caasimada badankii iyada ayaa dhistay jidka bundooyinka badan ee loogu magac daray General Asaasi ciidanka xoogga jinniga Soomaaliyeed General Shumac Shushu xitaa iyada ayaa dhistay sawirkan afartan jid ee iskor saaran iyada ayaa dhistay waana bartamaha caasimada Soomaaliya Muqdisho walaashay aan aad u jecelahay mataantayda waxa la dhahaa Ra'yatul Ayn waxayna ku takhasustay cilmiga cirbixiyeenada waa qof aad ugu dheeraysa garashada cilmiga xidigista waa qof mucjiso ah oo karti badan mar ay meerayaasha jirtay mar ay dhul baraha toobayso iyo mar ay kubadda jilibka dheelayso oo weeye walaalahay inta kale ma doonayo inaan magacyadooda aan u sheego shanfarood leh waayo hawada insiga uma soo degaan iyaga inta kale magacyadooda in lagu sheego hawa aan jinni ahayn ma ogola waan gartay oo dib ma laha laakiin Rayma kubadda jilibka maxaad ula jeedaa anaga kubadda cagta ma dheelno waxaan dheelnaa kubadda jilibka General Shushu wiil uu awowga u yahay ee Duuriya la dhaho ayaa uu laacibsan xitaa Ronaldo iyo Messi waxba uma oga 400 oo kubadda dahabka ah ayuu qaatay 500 sano la soo dhaafay isaga ayaa ugu laacibsan horyaalka kubadda jilibka Soomaaliyeed Rayma walaasha Ra'yatul Ayn adiga ayaa iskeen baray waa gabar aad u wanaagsan dhabtiina waan doonayay in aan la sheekaysto habeenkaadi bartay ee aan dabaqa sare ee hotel Jazeera iskula sheekaysanayay ka sakoona ma aanan arkin mar aan Facebook iskula hadalnay waxay ii sheegtay in ay Kismaayo joogto kadibna waan waayay halkee hadda ku dambaysaa Kismaayo miyay degan tahay mise safar bay ku jirtaa Ra'yatul Ayn Kismaayo ma degana balse markii aysan meerayaasha hawl u jirin ayay meesha isaga nasataa guri weyn oo qasri ah ayay Kismaayo ku leedahay meel u dhaxaysa xeebta iyo madaxtooyada Axmed Madoobe meeshaas ayay isaga nasataa haddii aan ku sheego waxa jira wiil ay suuriyiisa aad uga hesho oo reer Kismaayo ah halkaas ayuuna ku nool yahay hotel Kismaayo ku yaala ayuu ka shaqeeyaa marka inta badan waqtigeeda waxay ku qaadataa Kismaayo si markii ay u baahato ay wiilkaasi sheed uga daawan karto iyadoo fadhida barandada qasrigeeda waan gartay Rayma wiilka isaga ma yaqaana walaasha Ra'yatul Ayn ma se og yahay in ay jeceshahay
ma yaqaano marar badan ayay isku dayday inay isbarto balse waxay ka baqday inuu waasho waayo waa qof aad u qalbi jilicsan oo aan lagu degdegi karin aniga ayay ila tashatay waxaan ku iri usug inta uu ka gaarayo 30 jir markaas ayay rag qalbi adeeg bilaabaane markaas ayay bilaabi doontaa inay dareensiiso inay jirto gabar aan shanfurood la ahayn oo jacayl ugu haysa kasha iyo laabta waa iska dhibaato iyo gabar aan kugu uumis ahayn ay ku jeclaato haddase qadartii baa dhacday maxaa la samayn karaa waan gartay laakiin sidoo ku bilowday jacaylka Raytul Ayn ay u hayso wiilkaas magaciisa ma ila wadaagi kartaa si dadka barnaamijkan waraysigeena daawanaya ay u ogaadaan wiilka magaciisa ma sheegayo waayo in ay dadka qalad ka fahmaan ama uu isagu sas ku dhaco ma doonayo balse sida ay ku jeclaatay walaashii ayaa ahayd in wiilka ay hooyadiis aad u jeclayd markii uu yaraa markii ay wiilkeeda eegaysana waxa ay u eegi jirtay si aad raxmad u leh oo aysan ka fikirin in ishaas raxmadeed ee tirada badan ay wiilka dhibaato ku noqon karto habeenada kamid ah wiilka hooyadiis ayaa waxa ay daawanaysa wiilkeeda oo dhowr bilood jira oo hurda raxmada qalbigeeda ka buuxday darteed ayay ilin ka timid hooyadii indhaheeda waayo waa curadkeeda waxayna jeceshahay kadib ilintaas iftiinkeeda ayaa walaashay oo xeebta Kismaayo iska maraysay indhaha ka cawirtay markii ay soo egtayna waxay aragtay hooyadan wiilkeeda jacayl dartiis ugu kor ilmeynaysa haddana aan is ogeyn oo ilinta aan iska masaxayn Raytul Ayn waa qof ahlu diin ah wiilka ilintii waa ay ka tirtirtay si aysan ilintaasi ilqumayo wiilka ugu noqon kadibna wiilkaas ilaa yaraantiisii ayay iska jecleed oo xaaladiisa ayay sheeda kala socon jirtay sidaas ayuu qalbigeeda ugu dhismay caashiq qalbigeeda buuxdhaafiyay ee Kismaayo dejiyay aniga hooyeenka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in mar walba oo ay qoraansi ku sameynayaan ilmahooda yaryar ay dhahaan maasha Allah waayo hooyada isheeda ayaa cunugeeda ku noqon karta dhib balse iyadu ma dareemayso Rima hooyada Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawan doonta maxaad kula talinaysaa si ay uga faa'iideysato waxaan ka hadlayaa dabcan marka ay ka hadlayaan ubadka xanaaniintiisa horta hooyo walba ha ogaato marka ay cunugeeda il naxariis leh ku eegayso waxa ay bugeeda ka dareemaysaa bil yar oo jacayl iyo naxariis dartood ah marka ay sidaa dareento waa inay tiraahdaa maasha Allah waa in ay dhahdaa subxaanaka yaa cadiim waa inay dhahdaa yaa Allah yaa raxmaan yaa raxiim waxa kale oo aan kula talin lahaa in ilmaha yar la ag dhigo rikoor ama telefoon uu ka shidan yahay quraan waayo quraanka shayaadiinta way ka cararaan ishana wuu kicil yahay ilmaha qalbiga cunuga wuxuu ku reebaa saameyn uu cunuga ka faa'iideysan karo marka uu yaro koro oo dugsiga la geeyo waayo quraanka markii uu yaraa loo shidi jiray ayaa qalbiga ku suuraysan oo caawinaya xafidaadda quraanka waan gartay waa kala wanaagsan Rima waxa laga yaabaa in ay dadka isweydiiyaan Rima iyadu diin nooce ah ayay haysataa bal maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas الحمد لله صائمة جدي سيدا أنو أسرناها ربي سبحانه وتعالى يا إنوني معي أنا جي دمان أهلكي وحنا مسلمين إله إيمانك إنه قدلو آخرنا جناها إنجيه آمين ما هتسند marka hore xaladaada wanaagsan hadii aan u soo laabto arintii wiilkii ay walaashaa jecleyd isaga wali ma arkay walaashaa hataa yaraantiisiba ha ahaatee yaraantiisii haa laakiin markii uu 2 sano soo gaaray kadib ma arkin walaashay Raytul Ayn waa ay ciyaarsan jirtay wiilka isaga oo yar waliba hooyadiis ma dareemi jirin in wiilkeeda ay gabar kale oo aan ku uumis ahayn ay u ciyaarsiinayso isagana waa ilmo yar oo aan jinni iyo insi kala garanayn oo uu iska ciyaari jiray cidii ciyaarsiiso ayuu u qoslaa cunuga yar Soomaalidana waxa ay dhahdaa malaa'igta ayaa ka qosol siisay marka walaashay waa qof muslim ah oo in ay ciyaarsiiso mooyee aan ugu iimaaneyn inay dhibaatayso cunugaas yar ee sabiga ah markii uu wiilka garaadkiisa biloobay waa ay ka joojisay inay istusto waayo maskaxdiisa ma xamili karto inay xafido muuqaalkeeda waan gartay Rima waxaad mar iga ballan qaaday haddii aad xasuusato inaad iga sheekeyn doonto gabdhaha Soomaaliyeed ee dhaha wiil jinni ah ayaa iga kor hadlay bal hadda fursadaad ma helaysaa si aad wax cun iiga taabato maya taas waraysi kale inooga dhig waayo aniga ayaa muursaaqsan hadda sibaan u muursaaqsanahay laakiin muursaaqsan maxaad ula jeedaan raali noqo waan birtoolanaha ayaan ula jeedaa weli kuma fahmin waan birtoobanahay laftirkeedaba maxaad ula jeedaa Rima Soomaalida shanfaroodlaha waxay dhahdaa geelaygi waa cirka lagu maaliyaa sidaas amal oo afjini ah weeye marka xaaladu si ka tahay oo qof kale wax ka qasooya ayaan dhahnaa waan muursaaqsanahay ama waan birtoolanahay laakiin aniga hataa hadda walwal ayaad igu abuurtay hadda maxaa
كهاليسن أما محل جاهلية ولا جا بيئي مؤجان كرانيجا ninkii baas soo uma jeedid kii aan jeclaaba naagtiisa minyarada la jooga qolka jiifka isku sar go'an yihiin oo waxaad moodaa gacmihiisa in ay jirkeeda ku sameynayaan kormeer howleed heer qaran ah mintin ilaa cirib buu gacanta mariyay iyaduna hamuun darteed miir beel bay isku ridaysaa day afkeeda balday siday tiraahdo turfatoorad kan qalbiga inta ka dhag qaaday ayaa guntii ka degtay sida aan kaga soo saari doono ma oga wallaah ريما رالي نقو جيركاجي أو دم باجري إندها جين قاعد كبحية أنا جوان بخيرونتي حتى كلا هذلو واحد كشة كيني سنة ومجيد بل إزدجي هرتا أنا ورئيسي غيبتان أمدميني وإقعد سيزدجي هنا يقصوا سكن ريما هذا مركا كشة كينيسي ويقصوا سكنيسي هيقصوا سكن أنت سكون عدسي أهان إيتهجي إيه إيكاد هالكن إيه فدي وإن أن بد جنتي ذا كسو جوع حفتا هديك لو إسجويا هالكاد ريما قوي مجيدو ريما أقول كيف أنا كلام عارفين waa ikan raali noqo 10 daqiiqo aan ka maqnaa badda ruushka ayaan tagay si aan barafka badweyntaas isugu soo guul xafiyo waayo waan guban lahaa hadii kale naagtan sidan iiga masirsiisay waan iska dhicin lahaa ee marna ma gifto inay cuud bilaysato iyo in ay alxamdulillah tiraahdo markii ay hawsha odageeda ka bogato isaguna waa neef caadi ah bisinka umbu mararka qaar haleela mooyee uma adkaar badna sida naagtaas baas naagaha kale xitaa waxay kaga kasbatay waxa ugu badan adkaartan waayo waligii ma arag iyada oo inta bisinka hilmaantay uu shaydaanka wasaqdiisa uraysa uu korkeeda ku shubo waa naag caqli badan ريما وما صدقي قبلها إنسجا سيدا عادي قهوة وحاكو دعا ديك لو يقان عادو هذينك ما يدي كو دعا حتى جينيتهم أنا قبلين جيني ديك عادة بدل كيسة وحانا كو دعا هدوفان كو وادي عن سنك كلمة أو أربضا كاسو قبل جيني وديدي إنو نينك أدوان كارو إنتو هدوفان كحيو balse marka aan muuqaalka insiga isu soo ekeysiyay xitaa hadii uu haduufaankan yahayo la igama garan karo waayo muuqaalkayga iyo dheehayguba waa bedelmayaan waan gartay Rima gabdhaha jiniga imise ayay uurka sidaan marka ay uureystaan waxay ku xiran tahay nooca jiniga qabiilkayga silad waxa ay hooyada uurka la sidaa 12 bilood kadibna 30 ilmo ayay dhalaysaa balse qaar waxa jira bishii 1 ilmo dhalo sida shayaadiinta oo kale waan gartay Rima Soomaalidu waxay dhaxaan maahayo badan ay leeyihiin oo jiniga ku saabsan tusaale waxa ay dhahaan jiniba miirkiisa waa qaba jini ninkii keena ayaa bixiya iyo jini ka carar mooyee oo kaadsi bale idinka maxaad dhahdaan waxa dhahnaa shanfarood la sheekadiisa faan waaye waxa kaloon dhahnaa dhoocil insi dhubuqdeeda ayaa dharbaaxo jini u keenta waxaan kaloo dhahnaa jecel insi kaa gala iyo jid cirka lagu beegay midna lagama guul gaaro Rima hadaynu ku sheegay haddana waa kugu celinaya soo sikashada dhaqdhaqaaqaaga marar qaar waxa moodaa inay taawanayso marka waxaan ka codsanayaa ha igu soo sikanin meeshaada hal mar wuuna dhammaan rabaa waraysiga si degan u fadhi qaybihii dambena waa maraynaa Rima dalka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 18 gobol haddana maamul goboleedyo ayaa ka jira oo federaal ah jiniga isaga ma isla sidaas buu 18 gobol u leeyahay mise waad ka duwan tihiin insiga Soomaaliyeed haddii aad tihiin jinka Soomaaliyeed gobol ahaan anaga waan ka duwannahay waayo anaga Soomaali weyn ayaa inoo dhisan haddii aan jini Soomaaliyeed nahay Kenya iyo Itoobiya insigu bay dhulka ka haystaan mooyee jini ahaan Gaarisa iyo Goday magaalada Suufaadiin ayaa laga xukumaa gobolada Soomaaliyeed ee jinigu waa 27 gobol Suufaadiin maxaad ula jeedaa in aad jini tahay ayaan ku maleynayay Suufaadiin waa magaca Muqdisho ay jiniga u yaqaanaan Rima gobolada Soomaaliyeed ee jiniga magacyadooda ma nala wadaagi kartaa Suufaadiin waxaan u naqaanaa Banaadir Leymudiin shabeellada hoose Samuudiin shabeellada dhexe Barqadladiin Baay Keerladiin Bakool Samuurdiin Gedo Daraasdiin Jubbada dhexe Biyodiin Jubbada hoose Raasdiin Hiiraan Taqyudiin Galgaduud Rayxaanudiin Mudug
maasdiin nugaal raasamiinudiin bari laasudiin sool teeludiin sanaag wanudiin tugdheer naasudiin waqooyi galbeed owludiin awdal sumbuuli qoraxey shaashaah shabeelle kaamilnuur goday xaafis suuni baali ganaane doolow saan rasuul mandheera kaamuusan gaarisa baaxuuriin wajeer liifeeliin tana river waa 27 gobol ee Soomaaliya ريما سوماليا إنسجا واحد مدحوينه هو محمد عبد الله فرماجو واحد رئيس البرلمان هو محمد شيخ عثمان جواري واحد رئيس الوزراء هو انحصى على غيره جينيجا من نظام كاس أمبولية هي هو مدحوس أيام مدحوه مثل مامو جار أيولية هي جينيجا سوماليا أنا وحول أنا مدحوينه رئيس الوزراء البرلمان كأشياء يسوع ما قبنا شركة هالكن إذا جوجي ورئيس كتير سكلي أحد إنه كذي ودي دالسي عندها إسقو قبض في أنكاغا تقو نبدي باي باي إيما سوكر دم باي نوكلا أفكيغو قلومتي قبيلي يورير متي أفكيغو قلومتي قبيلي يورير متي أفكار كله ما تيجو أو ما تيجو أفكار كله ويا سوماليا دواقي سوقدو توحن باسو إفبحي dadka ku nool dalka UK caasimadiisa London waxa loogu bishaareynayaa in Som Satellite Service laga furay xaafadda Summerbush kaasoo ka khatar doona baahida u qabtid inaad wax daawatid halkaasi waxa ku diyaara sida Red Lake, Maxitech, Mag, Android, Smart TV iyo Zap TV intaba waa ku diyaar halkaasi waxay ku leeyihiin Som Satellite waxaan ku soo dhaweynaynaa macaamiishana qiimo aad u raali gelin doona iyo gacmo furan waxa ku diyaar halkaas عبد العزيز عبد الفتاح وهي فرعيه بلارن كليهين دلكا سويدن عاصمتيسا ستوكهولم حافظه رنجبي وحاسه كدياره halka kaasna انجينير نور بولي احمد بولي hadaba balantaynu waa Som Satellite Service jumla iyo tafaariikh meel u baad caalamka joogtidna waxay kugu soo dirayaan si degdeg ah waxay ka khatirayaan baahida u qabtina wax daawatid hadii aad hor u weysatayna way ku buuxinayaan balantaynu waa Som Satellite Service أفكيغو قلومتي قبيلي يورير متي